marka hore waxaan idinku soo dhaweynayaa mudane wasiir adiga iyo tiimkaagaba aqalka sare. waxaan ku bilaaban doonaa isbarasho anigoo ah gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda. magacayga waa senator Marian Faarax. waxaa dhinacayga right ka fadhiya ku-xigeenkayga senator Zamzam. waxaa ku xiga senator Ayaan oo xogayaheena ah, Cabdixakiin oo member ah. waxaa naga maqan laba senator Cabdi Samatar iyo senator Zamzam. waxaa kaloo nala jooga shaqaalaha aqalka sare oo ugu horeeya xogayaha guud ee aqalka sare Cabdi Naasir. waxaa kaloo nala joogta Ramla, Daahir, Zamzam, Faiza iyo Cabdullaahi oo xogayaha guddigeena ah. marka ku soo dhawaada aqalka sare mudane wasiir adiga tiimkaaga. marka idinku soo dhaweynaysa sida isku kan bartaan inigana waa mahadsantahay. soo booqashada aqalka sare jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo nagu casuumay guddiga arrimaha dibadda ee aqalka sare. mar labaad soo dhaweynta iyo mataqaanaa casuumaadda waa idinka mahadnaqaynaa. intaa kadib isbarasho magacaygu waa Abshir Umar Jaamac, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga. dhinacayga waxaa fadhiya wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane xildhibaan Isaaq Mursal. waxaa ku xiga ambassador Maxamed Cali Nuur Xaaji, xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda. waxaa ku xiga Cabdi Daahir, madaxa waaxda Yurub iyo America. waxaa ku xiga Cabdi Weli, agaasimaha macadka diblomaasiyadda iyo tababarada. mudane Cabdi Salaam, agaasimaha waaxda Asia wasaaradda. Cabdi Daahir aan kusoo celiyay madaxa waaxda waanadiya waa agaasimaha waaxda Yurub iyo America. aad iyo aad baa mahadsantihiin. barasho wanaagsan gudoomiye. mudane wasiir haddana waxaan usii gudagalaynaa ajandaheeni oo ah is-xog waraysi. mudane wasiir I think waa haysatiin copy of ajandaha. nala wadaag faahfaahin ku saabsan qorshe howleedka wasaaradda arrimaha dibadda adigoo mahadsan. wasaaraddu waxay diyaarisay qorshe howleed faahfaahsan oo ballaaran muddada 40 sano soo socota. si ku meel gaar ah hase ahaatee waxaanu soo ururinay xogayga saaray muddada qorshe howleedka sanadka 2022 kaasoo ah qorshe howleed muddo sanad ah oo sanadkan hadda aynu bilownay. qorshe howleedkaas oo u qoran sidan waxaa ka mid ah waxyaabaha noo qorshaysan inaan dib u eegis ku sameyno horumarinta siyaasadda qaran ee arrimaha dibadda, taasoo hawsheeda aanu bilownay November. ayna tahay inaanu siyaasad dhammaystiran oo dhammaan golayaasha oo dhan iyo xafiisyada kusoo dhaafta aanu gaaro November sanadkan inta ka soo horeysa. sidoo kale dib u habeyn iyo horumarin inaanu ku sameyno maamuuska qaranka si waafaqsan hanaanka federaalka dalka iyo dhamaystirka sharciyeedka maamuuska qaranka, iyada oo la horgeynayo golaha wasiirada xeerka baasaboorada diblomaasiga iyo shaqada. dib u habeyn in lagu sameeyo sidoo kale agaasinka maamuuska qaranka. waxaa noo qorshaysan xoojinta xiriirka qurbo-joogta Soomaaliyeed. waxaa golaha wasiirada laga ansixinayaa siyaasadda qaran ee qurbo-joogta Soomaaliyeed
midaasoo aanu soo saaray oo hadda diyaar noo ah inaanu u gudbino golayaasha ee khusayso soona bandhignay. waxaan insha allah noo qorshaysan inaanu qabano shirweyne lagu soo bandhigayo siyaasadda qaranka ee qodba joogta Soomaaliyeed laguna xoojinayo xiriirkooda. waxaa jira jaaliyado badan iyo ururo badan oo jaaliyadeed oo adduunka dacladiisa ka dhisan laakiin aan xiriir isku xiro lahayn. waxaan doonaynaa inaanu mideyno samaynona hal jaaliyad Soomaaliyeed oo caalami ah oo dhammaan jaaliyada ay ku midaysan yihiin wasaaraddana ku xiran haddii ilaahay yidhaahdo. siyaasadda hadda aanu samaynay oo ah siyaasaddii ugu horreysay waa ku meel gaar. waxaan doonaynaa insha allahu markaanu mideyno ururadaas oo dhan inaanu dhammaan wixii macluumaad ah ama horumar ay u baahan tahay aanu ku daro ilaahay idinkii. waxaa noo qorshaysan xoojinta xiriirka iyo iskaashiga caalamiga ah sida ururinta kaydinta heshiisyada Soomaaliya ay dhinaca ka tahay. waxaa noo qorshaysan xoojinta xiriirka iskaashi ee aan leenahay dowladaha dariska ah iyada oo dabagal lagu sameynayo lana fulinayo heshiisyada hore u jiray kuwa cusubna la curinayo. hawshaas mar horeba waa wadnaa sida la socotaan hadda intii xukuumaddaana jirtay aad baan u soconay xiriiro badan oo ama aan hagaagsanayn ama go'naa ayaanu dib yani u hagaajinay. arrimahaas hadda arrimo aanu ilaa iyo hadda waqtigan hadda ah marka loo fiiriyo waqtiga aanu wuxuun ka gaaray horumar weeye. waxaanu jecel lahay annagu waxaanu haynaa qaybta ku dageena ah Soomaali heshiisa dunida la heshiisa waxaanu ku shaqaynaynaa sectionka dunida la heshiisa marka inaanu raadino ka shaqayno Soomaali masaalixdeedu aanay waxa qabada la kulmin Soomaali xiriir la leh caalamka waxa la yaraatee konfliktiga ama colaad ah ama isticmaal siyaasadeed aysan jirin haddii ay dhacdo inay dhacaana si wanaagsan oo nabad ah oo hufan oo diblomaasiyad wanaagsan in looga gudbo. waxaan noo qorshaysan cusboonaysiinta heshiisyada iskaashi ee maaliyadeed iyo farsamo ee u dhexeeya Soomaaliya iyo hay'adaha caalamka. arrintaas waxay xiriir la leedahay hay'adaha caalamka inta badan dhaqaalaha iyo waxa la midkaas shaqadoodu tahay naga xiriirada badan inala leh wax badanna ayna kaga xiran yihiin. waxaad ogtahay horumarkeena xagga maaliyadda inay caqabado ku yihiin deymanka layna ku leeyahay marka tan waxay xiriir la leedahay dhinacaas. waxaa noo qorshaysan xoojinta dadaalka ka noqoshada ururada gobolka iyo kuwa caalamka ay Soomaaliya ka maqan tahay. waxaa ugu horeeya ururka bulshada bariga Afrika oo hadda dowladda inta jirta mar hore ergey la magacaabay ayna soo booqdeen bishii November xogayaha guud guddiga qabanqaabada ee hawsha ku hayay gacanta ku hayay arrinta ka mid noqoshada iyo faylkeena ka mid noqoshadeena East Africa Community. والحين وين صوب قبل أساس متبادل واسع لا مش عم راح مريان أيضا الجدال بنقودنا إن كم النقطة شروطها حتى قارب كم دوين بالحني أما فرن كرولة لكن أهمها لا حريرة سهمية كلامته لا حريرة حالها حتى قبل كتيرة هو إن شاء الله يقدر ونسع سعلا سيدا مقتنع ودمنا برجع أفريقيا فرن كرولة وين يقول يهين وحلو هليه إنه قيد كنا قلنا وحى يضنا إنه قرشيسن كعنتنا نقول إنه هرمرنتا وحقبت كوسعرتا ووجه رئيسه تبغى هبينتا يهرمرنتا هنان كالشقة يقعد اسمه كوسعرتا يوحي هذا يضل لما المرنية حال كهجة قابل اسمه كهذا الدولة وحنا قرشيسن تبغى هبينتا هولها ترى النظام كسفارة لها كوسلينها جود يرجوينك يلا الراعي سياسة حكومتنا هي شرع الشغل الدولة كعنتنا كهينا مرهرة أهول وفنتي حويان بحدله ابن بدن ماشي للطرطنة كل شيء لكنه باهن إن لو ترجع الله أتكسته لكن صوت الله هو أنا بدنا
waxaa noo qorshaysan horumarinta siyaasadaha iyo habraacyada shaqo ee wasaaradda sida kaydinta iyo xareynta dukumentiyada ee xusuus dhowrka ah. meelahaas waa hadda inta noo qorshaysan sanadkan. insha allahna waxaan jecelahay sanadka gudihiisa inaan wada gaaro in badan oo kamid ana hadda gacantaanu ku haynaa, waxna waanu ka gaarnay. meelahaas way hadda madow gudoomiye meesha ay noo joogtaa gudoomiyaha iyo xubnaha kale ee aqalka sare iyo shaqaalaha looga salaamaya. shaqahayn intaba mahadsanid. waa mahadsan tahay. tirada safaaradaha inoo furan caalamka inoo ka furan waa 42 safaaradood. waxaa kaloo inoo furan 3 xunsuliyadood. waxaa kaloo inoo furan 2 ergo ergooyinka macnaha Switzerland, Geneva iyo New York. marka totalka ergooyinka xunsuliyadaha iyo safaaradaha marka la isku daro waa 47. aniga waxaan rabay inaan hadda hal arin oo mar walba dalkeena aad moodo inay dee caqabad jirta tahay, wasaaraddana aan dareensanahay inay mas-uuliyaadkeeda ka mid tahay, waa protocolka structureka waddankan dowladdii federaalka ahayd, dowlad goboleedyo, wasiirada, xildhibaan state, xildhibaan federaala, waa la isdhex yaacsan yahay si loo kala sareeyo iyo protocolka la kala leeyahay meelay ku qoran tahay. hadday adinka jirta agtiina dee wasaaraddu iyadaa waxaan u malaynayaa howlahaas u xil saarane ma ogi, laakiin meel ay ku caddahay iyo dalkani structurekiisaas xagga maamulka iyo xagga protocolka iyo awoodaha la kala leeyahay iyo shaqadiisa meel ay ku caddahay ma aynaan arkin. marka ma jirtaa wax qorsho ahoo dhinacaasa ama idinkaga qorshaysan ama aad maaragtay hadda ka hor diyaarsan oo jiraa miyay jiraan? kolley dee waxaan u malaynayaa markii dowladdii Soomaaliyeed maxaa la yidhaahdaa xoogga laheyd ee dowladda dhexe ay xoogga laheyd ay jirtay, waxaan u malaynayaa inay dee kala dambeyntu way iska caddayd, laakiin hadda wax badan baa isdhexgalay. marka dhinacaas xagga protocolka iyo ma jirtaa wax oo dhinaca kale? su-aasha labaad oo hadda hadalkaagii waxaad noo sheegtay ururo badan oo aan xubno ka nahay iyo kuwa aad doonaysaan hadda laftirkeeda in laga mid noqdo, laakiin anigu shakhsiyan baarlamaanka African ka mid ahaa 5 sano la soo dhaafay. hadda waxaan ku jiraa baarlamaanka carabta aniga iyo wasaaradda Zamzam oo halkan iyadana fadhisa. waxyaabaha marar badan caqabada ku ah xataa dadkeena mimbariska ka ah meelahaas waa contributionka dowladda Soomaaliya laga rabo oo organizationadaas caalamiga ah ka mid ka nahay ama kuwa laga mid noqonayo ha noqoto ama kii laga mid ka ah noqotay. waxaa jira caqabado oo xagga dowladda Soomaaliya lacagihii la rabay inay bixiso inaysan bixinin. marka iyada laftirkeeda meelaha qaar xataa waxa la iska rabaa wax badan iyadoon ahayn ayay haddana magacii iyo muuqaalkii dalku u lahaa ayuu dhaawac ugu yahay ugu jira. marka maadaama dee wasaaradda arrimaha dibadda ay tahay waajihadii xagga dibadda oo qorshe waxaas isku xiri lahayd, wasaaradda maaliyadda iyo jihooyinka kaleete ay khusayso iyo madaxda qaranka iyo wasaaradda laftirkeeda aragti ma jirtaa? waa ognaad xaaladda dhaqaale dalku ku jira, laakiin aragti guud ma jirtaa oo la rabo in lagu kafargareeyo baahidaas oo qorshaysan at least hadba wixii la gaaro in la xaliyo? waa mahadsanta. wasaaraddu way hortataa way la socotaa. waa runtaayo waxa weeye protocolkeennii hore ku salaysnaa unitary system uu ahaa oo ahaa dowlad muxuu ahaa ishay si central ah oo aan ahayn federal aan ahayn. haddana waxaan qaadanay system federalism ayaan qaadanay. marka caqabadaha maanta hortaagan ayuu ka mid yahay protocolka oo waxaan jirin muxuu ahay national protocol manual waa in waddanka loo soo saaro waana khasab laba u qaybsanaa. marka in la soo saaro mid waxa weeye waa diplomatic protocol, midna waxa weeye waa political protocol. annaga wasaarad ahaan waxaan muxuu ahaa ii sheegay si khaasa noo saaran
tan ah diplomatic protocol-ka inaanu muxuu ahaa shirkaa wasaaradda ayay waajibaadkeeda tahay inay dhamaystirto amaba muxuu ahaa qaybta weyn ay ka qaadato inkastoo ay muxuu ahaa qayb ku lahanayaan xukuumadda inteeda kale laakiin kan ah political protocol-ka waa national waa mid saaran ka imaanaya muxuu ahaa baarlamaanka labadiisa aqal waa inay qaybtooda leeyihiin waa inuu muxuu ahaa dowladda laga bilaabo xafiiska prime ministerka ka madaxweynaha iyo cabinetka waa in iyo maamul goboleedada intay ka wada fadhiistaan ilaan waddan walbaba isaga ayaa systemkiisa samaysta inay iyaga intaan laga wada fadhiisto annagana intii aqoonteenna iyo fahamkeenna wasaaradda arrimaha dibadda ah inaan ku biirino halkaana laga soo saaro muxuu ahaa national protocol manual oo meesha ugu hooseysa ay tegaysa ay tahay xitaa sida loo kala fadhiisanayo waxaad arkaysaan madaxweynaha ama prime ministerka oo intuu ka tago xamar tagayo gobolkiisii soomaaliya haddana ninkii mas-uulka ka ahaa uu fadhiisanayo dhanka bidixda madaxweynihiina uu midigta fadhiyo taas roo macnihi waxa weeye waxay taa tusinaysaa in uu tagay dal kale inuu tagay uu marti ku yahay marka waxyaabay ka mid tahay dhibaatooyin kaloo jira oo iyadana ka mida waxay tahay oo ah dhinaca diplomatic protocol-ka ah xitaa marka la wada fadhiisanayo oo ama shir loo fadhiisanayo sidee loo kala mudan yahay sidee loo kala fadhiisanayaa markay joogaan maamul goboleedka iyo muxuu ahaa dowladda ay shir wada leeyihiin sidee baa loo fadhiisanaya one example haddaan ku siiyo wasiirka ama wasiirada oo federaalka oo kale iyo markii maamul goboleedada ayagana wasiiradu ay yimaadaan habkee xataa loo fadhiisanayaa waxaad arkaysaa markii la yimaado muqdishona wasiirada federaalka ayaa presidentka leh markii xagga la tagana wasiirada maamul goboleedada waxaa arkaysaa ayagoo safan oo weliba dhan keliya fadhiyo oo dhanka midigta fadhiyo wasiiradii federaalkana la fariisiyey dhanka bidixda la fariisiyo marka haddaan taa kaaga jawaabo waxa weeye waa arrin u baahan muxuu ahaa national approach qaranka o dhan u baahan inuu taa wax ka qabto kuna xiriirto oo sal ku ah dastuurka federaalka tan haddaan usoo laabto waxaan malaynayaa intaas waa haddii waxaan ka tegi waa laygu barayaa tan contributionada waa run dhibaato fara badan ayaa ka jirta oo mararka qaarkood mas-uuliyiintii dowladda soomaaliyeed oo ka qaybgelaya shir midka ugu sahlan oo aan garan karo waa oo aad aan u dareemi karo waa for example soo qaad African Unionka anna markaa waan joogo shaqeer baan ka ahaa waxaad arkaysaa madaxweynihii oo saacado kadib leh inuu muxuu ahaa interventionkii sameeyo ama khudbadiisii uu soo jeediyo laakiin contributionka aan la bixinin microphone-kan wuu xiran yahay because sanction baa la saaraa haddaad sanctionka lagu saaro inaad lacagta aad bixisana waxa weeye microphone-kan wuu xiran yahay xitaa madaxweynihii ma hadli karo in la iska daba cararo hadda bixiyaa inta ka qayliya markaa kabacdi aan la cararno aan geyno muxuu ahaa bangigiis muxuu ahaa statementigii uu bixiyey andrana waa kan waa bixina bliis hana loo furo oo la furo lacagahana laku leeyahay emailana kaga leeyahay wasiir haa halkan waan usoo laabanayaa waxaa dhaca marka oo horey u dhici jiray wasaaradda arrimaha dibadda ayaa berigii hore waxaa lagu dari jiray budgetkeeda budgetkuu ku jiray budgetkaa laga bixin jiray laakiin ilaa waa dambe aniga intaan kusoo gaaray waxaa lagu wareejiyey budgetka wasaaradda waa laga saaray wasaaradda maaliyadda caqabadaha marka jiraa waxay tahay mar hadduusan budgetkii kuugu jirin wasaaraddii arrimaha dibaddana mas-uuliyaddii ay saaran tahay waa caqabad waxaa marka ay maraysaa in lasoo amro la yidhahda hala bixiyo contributionkaas wasaaraddii inay markaa ay waaran samayso waaranka kabacdi la qaado arrimaha wasaaradda maaliyadda loola tago wasaaradda maaliyadda lala hadlo la yidhaahdo lacagahaas bixiya madaxii laga bixin lahaa wasaaradda maba la xamdo cidda laga rabaana wasaaradda marka cilladaha ugu daran oo haysto horta waxa weeye systemka marka horeba waqtiga luminayo inuu yahay procedureka uu marayo tan labaad sidaan ognahay budgetka soomaaliya oo dhan waa figures laakiin actual budget maaha uu yaalla wax walbaba waxaa weeye markii la weydiiye markaa kabacdi la yidhahdaa
hala soo qaado hala bixiyo marka ciladahaas way jirtaa waa mid loo baahan yahay in laga hortago oo ah in amaba muxuu ahaa ay sheeg ururada aan ka mid nahay ama aan ka cudur daarano ama haddii kale waa siduu senatarka sheegay qaarkooda waxay tahay only $1,000 laakiin aan la bixin marka muxuu ahaa caqabadahaasna way jiraan wasiirka waa runtii codka annaga aan lahayn xitaa waxa weeye cod qiimo leh ama la raadinayo ma sababta waxa weeye markaad contribution-kaaga bixinayso ayaad cod iyo awood u leedahay inaad kala soo jeediso laakiin haddaan contribution bixin waxa weeye cid kale kaa dhigaysanaysa malaha waxaan rabay inaan idin xasuusiyo diplomatic protocol-ka iyo habmaamuusku waa qoran yahay waa dhammaystiran yahay weliba waxaa gacanta ku hayay guddiga khubarada wasaaradda arrimaha dibadda oo dhammaystiray waxay presentations ka sameeyeen oo idin xasuusinayaa kulankii u dambeeyay golaha wasiiradu ay retreat-ka u baxeen waa ku sameeyeen kii ka horeeyeyna waa ku sameeyeen ilaa iyo hadda uusan marin golaha wasiirada iyo baarlamaanka laakiin waa qoran yahay waa written waa dhammaystiran yahay iyadoo la dareemay caqabadaha maamul goboleedada iyo hadda soo koray oo meelo badan wasaaradda ay ka cross gareynayaan sida bixinta baasaboorka diblomaasiga iyo baasaboorka shaqada iyadoo la dareensan yahay guddiga laftarkoodu waxay ku dareen recommendations badan iyo tala soo jeedin badan oo iyadana lagu saxar bixinayo ayay sameeyeen marka arrintaas way dhammaystiran tahay xagga wasaaradda technically laakiin wuxuu weli golaha wasiirada ayuuna marin presentation badanna waa laga sameeyey markay wasiiradu isku yimaadaan sidaan ognahaybo wasaaradda arrimaha dibadda waa muraayadda waddanka waxaa moodaa safaaradahana su-aaladooda iyo cabashadooda inay aada iyo aada u badatay markaa su-aashaan kaa weydiinaya safaaradaha waxaa waaye safiirka duration loogu talagalay ma jirtaa ilaan adduunka waxaa ka jirtaa safiirka inuu 5 sano iyo 4 sano annaga sidaan Soomaali haddaan nahay dadkeena ilaa 10 years ka badan bay u joogaan safaaradaha marka duration exactly loogu talagalay ma jirtaa hadday jirinna maxaa idiin qorshaysan haddeertan mahadsanid midda ma jirtaa muddo qararan loogu talagalay sida siyaasadda arrimaha dibadda ku cad konsulka inta uu hal gooba safiirka hal goob intuu ka shaqayn karaa waa 4 sannadood 4 sano markuu ka shaqeeyo halkaa ama mission kale waddan kale uu aadi karaa ama wuxuu ku soo laaban karaa xarunta siyaabo badan ama waxyaabo badan oo sababaya ayaa jira hadda in safiirro badan ay ku sii nagaadaan oo sii joogaan meelahooda waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah safiirrada 90% inta badan waxay ka iman jireen wasaaradda arrimaha dibadda gudaheeda waxay ahaayeen diblomaasiyiin safaaradaha dhexdooda ku soo barbaaray oo career diplomat la yiraahdo oo tusaale ahaan xoghaye saddexaad ka bilaabay oo koowaad konsul noqday sidaas u koray ayay noqon jireen ama waxay noqon jireen dad aqoon iyo xirfad sare leh isla mar ahaantaana mar labaad sii mara wasaaradda kadibna saa loo diro oo ah dad career diplomat sida uu sheegay xogayaha joogtada intaa waxaa weheliya tiro kooban oo la yiraahdo loo magacaabo qaab siyaasadeed oo magacaabaan macnaha madaxda sare madaxweyne magacaabo political appointees ayaa la yiraahdaa waayadan dambe waxaa soo batay in haddaanayba safiirradan oo dhammi aanay noqon political appointees 90% iyo wax ka badan ay yihiin dowladdeennana hadda jirta waxaa qorshaysan arrintaa inay wax ka bedesho wasaaradda waxaa qorshaysan inay arrintaa wax ka bedesho oo ay ku soo celiso sidii boolisiga iyo siyaasadda arrimaha dibaddu ay ahayd caqabadaha jira waxaa ka mid ah marka laga reebo shaqooyinka ama howl maalmeedka safaaradaheenna ka sokow in safiirrada political appointeeska ee markii hore laga magacaabay wasaaradda banaankeeda aanay wasaaradda ku xireen ay dhacdo mararka qaarkood inay magaalada yimaadaan inay meelo kale u safraan in intay soo galaan la ogaado iyagoo jooga waddanka gudihiisa in iyagoo jooga la ogaa oo iyagoo baxay haddana la ogaado
wasaaraddana aanay soo booqan ama xiriir la lahayn arrimahaasi arrimaha badan ee jira weeye waayo markii horeba wasaaradda kama aanay iman waa la magacaabay waa tageen hadda marka waxaa noo qorshaysan arrintu meesha ay leedahay inaan kusoo celinno reformka aanu hadda ku howlanahay ayayna noqonaysaa weli madaxda sare doorkoodii waa leedahay oo inay qaab siyaasadeed macnaha political grounds ay ku magacowdo dad laakiin waxaan ku dadaalaynaa inay sida hadda wax yihiin ay wax iska bedelaan ilaah idinkii mahadsanti marar badan safaaradaha banaanka qodobka safaaradahan ku jirnaa marar badan safaaradaha waxaan aragnaa inkastoo ay aada xiriir ula leedahay dhinaca wasaaradda maaliyadda iyo laakiin haddana adinku wasaaraddii mas-uulka ka ahayd safaaradaha tiin waxaan aragnaa wasaaradaha qaar dakhli local ay ka generate gareeyaan ama ay ka soo aruuriyaana jira oo ay wadamada qaara income leh safaaraduhu ay lacaga soo xareeyaan qaarna ama wax yaraa soo gala ama wax ma soo galaan dhinaca kale lacagta miisaaniyadda safaaradaha banaanka ugu jirtaahi waxaan haddaan hadda maalmahan wax laga bedelin ogaa inay isku mid tahay oo safaaradahoo dhan lacag number islam mid ah safaaradda new york joogta iyo midda wadamadan kaleete xataa dariska nalaah ama wadamada yaryar joogta ee isku lacag loo diro bisha markay dhammaato arrintaas hanti dhowraha laftarkiisa mar uu report kiisii ugu dambeeyey uu soo saarayay dhaliiluu ka soo jeediyey xagga isticmaalka lacagahaas iyo waxyaabaha la xiriira marka adinku ka wasaarad ahaan dowr intee la egaad ku leedihiin horta xagga miisaaniyadda iyo safaaradaha iyo jaangoynteeda iyo prioritiga siday u kala leeyihiin in loo kala hormariyo sideedaba wixii miisaaniyad la xiriira si hanteedaba dakhli soo xirooda kharash baxa ama lacag service la qabto horta waa shaqo wasaaradda maaliyadda wasaaraddii doonta ha qabato laakiin waxay tahay in wax walba ay ku yimaadaan oo lagu qabto oo ay ku shaqeeyaan siyaasadda wasaaradda maaliyadda in badan inagoo hadda dib u kabashaan ku jiraa wax waliba sidii loogu talagalay ay ahayd inay u shaqeeyaan uma shaqeeyaan way dhacdaa markaa in serviceyo safaaradaha qaarkood gaar ahaan servisyada iyo adeegyada qunsuliyadaha lacaga ay ka ururaan oo lacaga laga qaado hase ahaatee waxaa qeexan oo cad in habraacii maaliyadeed ee standardka ahaa ee saxda ahaa aanay taasi marin hadda qorshayaasheedan reformka ayay ka mid tahay maadaama nagaan cusubnahay hadda bishan 31keeda warqad baa naga baxday warqaddaa naga baxday waxay ahayd arrimahaas aan wax uga bedeli lahayn waanu ku weydiinayno madaxda safaaradaha iyo konsuliyadaha iyo ergooyinka inay nala wadaagaan xisaabaadkooda macnaha akoonadooda si aan u ogaano dakhliyada soo gala iyo dakhliyada soo gala siday u maareeyaan isla mar ahaantaana nambarada laftigooda aan rabno si haddii la rabo tixraac in ama dabagal lagu sameeyo in loogu samayn karo muddadii aan u qabanay ugu dambeyn inay noo soo gudbiyaan macluumaadkaas maanta oo 5 bisha ah ayay ahayd qaar badan oo ka mid ah safaaradu waa noo soo gudbiyaan qaar badan oo kalena waan sugaynaa arrimaha la xiriira hanti dhowrka iyo hawlihiisa waa run macnaha safaaraduhu perfect ma wax badan oo u baahan si wada jir ah in loo toosiyo ayaana jira wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda maaliyadda hanti dhowrka waxaasoo dhan waxyaabo ay tahay inay isla toosiyaan si wada jira annaguna taa hadda waa ku howlanahay inaanu taa samayno safaaraddii soo saarta dakhli ka badan baahideeda iyo hadduu baahideeda la egyahayba ama ka yaryahay dakhli oo dhan wasaaradda maaliyadda inuu yimaado wixii iyada surpluska ah hadday wasaaraddu wax generate garaynayso waxaa jira safaarado aan waxba soo gelin
taasi waa midda labaad caalamka wadamadu nolol ahaan isku mid maaha laakiin mushaharooyinka diblomaasiyiintu heerkay doonaan ha noqdeene meelay joogaanba waa isku mid qofka New York jooga iyo qofka Ethiopia jooga ee isku title-ka isku xilka isku waxay qaataan mushahar iyo isku gunno arrintaas marka waa jirtaa waa arrin caqabada arrimaha la xiriira adeega inta badan maba la helaba oo ma jirto waxaan u dhibi doonaa xogaha joogtada inta badan cabashooyinkan maqallo inaanay ama waqtigeeda ku helin ama aanay joogto u helin iyaduna way jirtaa laakiin haddana baahiyaha waxaan leeyahay adeegyada gunnooyinka iyo mushaharaadku kuma salaysna heerka nolosha ama qiimaha nolosha ee meelaha ay safaaradaha ama ergooyinka ama qunsuliyadu ay ka furan yihiin waa arrin marka u baahan waxaasoo dhan iyada loo eegayo heerka nolosha meesha aynu ku leenahay safaaradda in mar kasta baahida iyo miisaaniyadda la isla ekeysiiyo marka BS-kan u dhiibin haddii uu naxnaxinayo wasaaradda muxuu ahaa ishag maxaa kaga aadan ama ma la socotaan waan ognahay dakhli soo galaan qaarkood zero waxba ma soo galaan laakiin siyaasadda guud oo dalka ayaaba waxay maraysaa intaan idin sheegay oo ah in 3 sannadood aan safaaradaha la siinin qalin iyo warqad wax ay ku iibsadaan inaan la siinin budgetkii dawladdan uu ku jiraa lama siinin lacagta ay doonayaan waa imise marka safaaradaha oo dhan markii la isku daro running cost-kooda bishii wuxuu ahaa 98 waa 98,000 oo dollar bes buu ahaa xitaa hadday ahaan lahayd lacaga fara badan wax kale ahaan lahayd waa 98,000 oo dollar markaa hadda qaar baa ku dardarsamay haddii bil walba la siin lahaa safaaradaha oo dhan waxaa kaafisay 98,000 lama siin marka waxaan rabaa inaan soo jeediyo ku iraahdo excellency aan intiisa ku biiriyo ah wasaaradda dhibaatada challenge-ga ugu weyn oo haysto iyo hawsha laga doonayo laba isu dhow ma waa kaafi kala dheeri waxaa kaloo laga tegay oo aan u soo galay kaliya waxa weeyaan safarkii marka laga soo tago safaarada ijaara jiro oo dalka markaan banaanka joogno aan ka shaqeynayno waxaa jiro safaarada meel aan ku leenahay dalka dibadiisa oo dalkii uu leeyahay hanti maguuraana oo aan degannahay meelna waxaa lagu degan yahay kirooyinka marka waxaa dhacdo 3 shay inay isugu darsanto safaaradii kiradii aan la bixinin waxyaabihii oo maintenance-gii iyo cost-gii yaraayo lagu bixinayo oo la bixinin sidoo kale shaqaale hoosaadkii oo qaarkood muhiim ah sida darawalkii cleanerkii wixii aan la bixinin maxaa dhacay marka sida su'aasha uu keenay walaalkii safaaraddii marka wax yar ay qaadaysaa waxyaabaha la qaado waxaa ka mid ah baasboor naga soo galo wax marka waxaa jirto oo waqtiga annagoo ilaalinayno weliba waxaa jirto safaarada qaarkood oo dhibaato badan naga haysto meelo qaarkood oo laysku tumay meelo qaarkood oo lacag darteeda loo haysto safaaradda naftigeeda la xiri rabo meel intaas hadda Algeria ugu dambeysay 200 iyo sida oo hadda xogayaa ka hadlay ijaarka waxaa la bixinin 2017 19 17 18 19 20 21 22 lama bixinin waxaa soo baxday marka in ay xishoodaan wasaaraddii arrimaha dibadda dalkaas ay qaarkood naga caawiso ay dhahdo intaas waa la inka dhaafayaaye intaas la iska bixiya intiina ay noqoto 200 iyo xoogaa kun oo dollar wasaaradda maaliyaddana afka la aadin karin marka horta banaanka intaasaa ka jiro hadda maxamed wuxuu ka tegey 10 milyan 7 milyan iyo plus waxaa waa shaqaalaha bes waay nearly 8 milyan shaqaalaha waay macnaha accountka shaqaalkii ku dhacdaa maxaa soo haray inta kale shidaalka keliya iyo korontada wasaaradda bishii 10,000 plus waay haddii laga jaro marka shidaalka keliya waay macnaha haddii laga jaro marka intaas waxaa waaye 10 milyan waxay noqonaysaa yacni ha dhiman hana noolaan macnaha aad waa mahadsantihiin waxyaabahan dhan oo ah horta number 1 inteenan inta fadhida ah future-ka tomorrow annaga waay wasaaradda iyo safaaradaha labadaba waa muraayadii dalka
haddaana annaga toosinin cid toosinaysa ma laho annagoo iskaashanayna intaynan meesha fadhido iyo guddiga golaha shacabka intaan mar fadhiisano solution waan la imaan karnaa ani hadda suggestionkan idin dhiibay waxaa waaye wasiir waxaa dhada reform aa la sameynay reformka asaga maalintii la sameynayo waxaan rabnaa safiir kasta in lala xisaabtamo meeshan lasoo dhigo because safaaradaha waxa ka socdo annaga hadda waxa su'aal noo qoran badankood waa safaarada qaarkoodna inagaba noo jawaabteen annagoo ni warsanin oo hadda waaba xxan saarna waxaa noo jawaabteen su-aaleena ugu badan waxay ahaayeen safaarada marka wasiir waxaa raba inaan suggestion ku sameeyo maadaama waxaan leenahay 47 miya mase 42 waay safaaradeen 47 yes 47 horta waa inaan lahaanaabo annagoona lacagtana soo galaysaaba qalad horta number 1 marka ma la sameyn karaa dowladaha isku dhadhow like 5 dowladood camal in hal safiir loo sameeyo ma la sameyn karaa way noo qorshaysan tahay in tirada safaaradaha la ururiyo sababayna 47 safaaradood oo qunsuliyada Ameerikaan isugu jira aanu yeelan karno tabarteena marka la fiiriyo ma jirto isla mar ahaantaana inta inoo furan tahay aynaan ugu filayn inaynu wadno oo dhaqaale iyo awood aynaan u lahayn waxaan noo qorshaysan marka inaanu lambarkana yarayno meelaha qaarkoodna inta isu dhow aanu ka dhigno safaarad iyo meelaha kale oo safiirkaas safaaradda jooga uu inoo joogo non residence marka sidaasaanu jecelahay way noo qorshaysan tahay insha allah reformkayaga inaanu aad wax uga bedelo tirada hadda waxaa suurtagal ah in kulamadana dambe qaarkood su-aasha haddana weydiisaan tiradan tira ka yar aanu idiin sheegno ilaa idinka su-aasheedu waxay tahay mudane wasiir dhanka kale waxaan ognahay in uu jiro protocol markii laba dowladood ay isdhaafsanayaan safaaradaha wadanka Soomaaliya marka ay isdhaafsanayaan wadan kale safaarad protocolka la qoro oo ah in ay u ogoshahay dowladda tusaale kale Saudi Arabia kale safiir ku xigeen qunsul wax saasa inay u ogoshahay hadii ay jirto in dad ka badan shaqaalihii loo qoro maxay marka wasaaradda u ilaalin laadahay protocolkaas qoran oo dadkan la dirayo loo xakameyn laayahay qarbo wayn laakiin average-ku waa 10 qaar baa 20 joogan qaar baa 20 iyo wax dheer joogan qaar baa 7 8 12 waxa aad u badiya tirada dadka waxa la yiraahdo u qaybsanayaasha oo ka yimaada wasaaradda waxbarashada wasaaradda ganacsiga wasaaradda gaashaandhigga waayadan dambe wasaaradda arrimaha diinta waayadan dambe xataa media meel laga sheegay sport iyo hadda xataa waxyaabahaas jira waxa xaqiiqada jirta arrintu way ka gudubtay sababihii iyo baahiyihii yacnaha shaqaaluhu ay ku tegi jireen xagga yacna wax badan oo aan dani ugu jirin wadanka ayaa la xeeriyay oo dad badan lagu geeyay safaaradaha marka waxyaabaha hadda annaga aan noo qorshaysan weeye in meel walba markii lambarada la yareeyo safaaradaha inoo furan in haddana safaarad walba la yiraahdo imise qof bay u baahan tahay safiirka qunsulka oo ku xigeena hebel kale maximum adigu 5 inaanu ku koobno ataajiyadana inaanu codsano ama si macnaha u qaybsanayaasha in nala ka soo celiyo badankooda in la soo xareeyo oo meesha u baahan kaliya u qaybsane loo daayo marka waxa dhacaysa in la yiraahdo u qaybsanaha waxbarashada laakiin u qaybsanayaashii in loo sameeyo ku xigeenno in loo sameeyaa marka arrintaas way noo qorshaysan tahay insha allah furayo waxay ku xiran tahay xiriirka labada dal protocols
qoran oo dhahaya intaas qof intaas oo qofkeen safaradaha qaar iyo dalalka qaar kama jirto intaa doontaad geysan kartaa dalalka qaar sida dalka India oo kale markaynu aynu geyno dad waxay soo qoraan in positionka laga soo ogolaado wasaaradooda arrimaha dibadda tusaale kale haddii first secretary la geeyo oo first secretary kale la geeyo waxay oranayaan first secretary hore ayaa ku qoran kan waa inay bedeshaan maba aqbalaanba in qof kale la geeyo safaaradaha qaar waa iska open oo inta badan waxa weeye ma jirto number la geeyo turkidoo kale waa safaaradda ugu dadka badan aynu geynay ayaan filaya excellence usama way jireen laakiin iyagoo xiriirka wanaagsan ee nagala dhexeeya ixtiraamaya way noo ogolaadeen number kastoon geyno marka hadba waxay ku xidhan tahay sida aynu u dirno iyo sida ay labada dal ay ka dhaxayso laakiin sida caadiga dalalka ay u qoran tahay inta qof ay aqbalayaan simply way soo diidaan oo waxay dhahdaan positionkaas ilaa replacement aad samaysaan ma aqbalayno waa sax waxa weeye wadamada qaarkood heshiis baa la galaa oo la yiraahdaa intaasoo diblomaasi ayaanu idiin soo dirsanaynaa idinkuna intaasoo kale waxaa ka mid ah Belgiumka ka mid ah hadda heshiis waxaa jiray oo ay la gashay waxaan filayaa waqti hore waxaa ka mid ah Switzerland baa ka mid ah haddii qof lagu qoro safaaradahaas oo kale waxay yiraahdaan qofkii halkan joogay bedela sababtoo ah heshiis baa noo yaala meelahaas oo kale waa meelaha xoogay yar wasaaradda ay ku yara roon tahay waxaa jira marka dawladda waxaa jira haddii in case aad qof ziyaada ku qorto inta aysan kaa soo ogolaanin xogaa uu yara taabtay waxay ku leeyihiin mustaqbalka haddaan u baahano annagana waa idinku soo qori doonaa waxa weeye waa heshiis caalami ah la ogyahay laakiin annaga waa la iska diray wadamada qaarkoodna maadaama aan saaxiibo aan nahay way iska aqbalaan ayagoo og xitaa qofkan xataa miis uu fariisto kursi uu fariisto inuusan lahayn sababtoo waxay ku og yihiin wadamada qaarkood ayagaaba na siiyey meesha safaaradda ay ku shaqayso budgetka halaha yaroo haysana waa isgaarsiin karnaa wadanka tayadiisa ilaa horta markii hore qofka waa safaaradda iyo wasaaradda haddaad macnaheeda garanaynin ma garan kartid waxa dakhli ee wadanka waxay kusoo kordhin lahayd xitaa ma garan kartid marka taas suggestion bay ahayd marka su-aal baan ku warsan rabaa wasiir oo isla safaaradda ah safaaradda waxaa ka jira isqabqabsi badan oo xad dhaaf ah hadday wasiirka kistoo yaro dul maray but waa waxan waa wax excess ah waa wax annaga wadankeena cab u keenaysa nin safiir ah iyo consularka iyo nin junior inay maalin walba is haastaan oo Soomaali ah marka arinta iyada ah work ma ka haysin haddaa ka haysin what is the solution aad u haysin mahadsanid waa cusubnahay intii hadda aan joognay waxa ugu weyn aanu qabanaynay waxay ahayd bal horta xaaladda dhabta ah ee wasaaradda hadday tahay wasaaradda gudaheeda iyo hadday tahay safaaradaha inaan darisno baranno ogaano si aan uga dheeraano annagoo cusub inaan dafni raahnaho waxa la bedelo iyo waxa la waxeeyo iyo waxa la farfarayaan raahno taasoo kala fikirta in badan go'aamadaadu ay saameeyaan meelaha wanaagsan si aan ku talagalahayn lagana yaabaa wax badan oo istaahilay in laga shaqeeyo inaad dhaaftid waxaa kaloo jira inta badan marka madaxdu cusub tahay waxaa jira waa la marin habaabiya waxaa laga yaabaa kooxo ama dad iska organized ah ama in maslaxad siyaasadeed lagu dhex mariyo in laga yaabo maanta la yiraahdo hebel ama heblaayo waa dambiile hebel iyo hebel iyo hebel iyo kooxdaasi waa sidaa arrintaas marka si aan uga gudubno waxaanu qaadanay inaanu waqti siino inaanu xaqiiqada ka jirta safaaradaha iyo wasaaraddaba aanu darisno si aan cidna loogu xadgudbin hadda marka waxaanu ku xisaabtamaynaa horta sanadka inta ka hadhay annagu bartamihii agost baan la wareegnay shaqada inta badanna wasaaraddani dee waqtigeedu in badan oo ka mid ahii madaxda
oo wasiirada ay dibadda ku maqan yihiin way shaqadii baa dee shaqo arrimo dibadeed u badan waxaan markuu dhinac wadnay inaanu baranno dadkii inaanu baranno waxyaabaha ka jira safaaradihii inaanu baranno dhaqankayaga gudaha dhaqankayaga dibadda arrintaas waxaana siisay maanta inaanu ka buuxino macluumaad badan waana sababta reformka aanu dib ugu dhiganaynay inaanu hawsheeda qabsanno annaga oo ka warqabna oo og waxaanu qabanayno haddaanu xataa qaldanno qaladkayagu inuu qalad loo qaateena noqdo arrimaha isqabqabsiga way jiraan waxa waddanka gudihiisa yaal ayaa yaalla horta waddanka dibaddiisa si ahaanteedaba waxa wasaaradaha dhex yaalla xafiisyadeenna gudaha waddanka yaalla ayaa safaaradaha yaalla waxay safaaradahu dheer yihiin meel kale adaba ma leh dadku guri bay wada degan yihiin xafiis bay wada joogaan waddan ajnabi bay joogaan waxaa kaloo jira kala duwanaanta afkaarta siyaasadeed iyo waxyaabaha soomaalidu ku kala duwantahay ay isku haystaan ee waddanka yaalla iyaga qudhooda iyaguna safaaradihii yaalla waxaa kaloo iyaguna jira resourceka marka resourceka uu yar yahay oo kooban yahay ayaduna waxay keentaa marka waxa yaalla nacfiga ah jira ee tiro dadka jooga ay kala badan yihiin ayaduna waxay keentaa mar kasta resourceku waa waxa weeyaan wuxuu kalifaa isqabqabsi waxaa kaloo iyadana jirta inaan dadka howlqeexid sugan aysan lahayn waxaa laga yaabaa xoghayo koowaad oo safaaraddaasi ay qof lahaan lahayd inay 2 ama 3 xoghayo koowaad ay jiraan ama 2 ama 3 xoghayo labaad macnaheedu waxa weeyaan shaqada taalla safaaradaha iyo dadka jooga inay kala badan yihiin oo dadka jooga shaqada taalla iyo baahida ay ka badan yihiin arrintaasna waxaa keenay siyaasadii hore oo ah inta badan wasaaradda arrimaha dibadda gudaha iyo dibadba shaqaalaheedu waxay ku yimaadaan qaab loobin siyaasadeed ah dadkoo dhan marka doorashooyinku jiraan hebel iyo qor wax ii qor odaga xildhibaanka laga rabo ama codka laga doonayo intaas list baa la qoranaya waxaa leeyahay wasaaradda lagu qoro wasaaraddan waa meel dadka lagu tuuro mararka qaarkood yacnaha dadka wasaaradda inta la dhaafiyo waxaa loo dhaafinayaa safaaradaha arrimahaas waa arrimaha ugu badan ee keena dhibaatada waxay ku noqonaysaa su-aashii hore jawaabteedii oo ahayd dadka shaqada loo dirayo waa inay dad tayadii leh iyo capacity yihiin waana inay dad habraacii shaqo qorista soo maray ay yihiin dadku markaan markii hore lagu keenin awooddooda aqooneed iyo kartiyeed marka aan lagu keenin inay habraaci soo mareen marka waxaasoo dhan iyagoo la qaab siyaasadeed iyo magacow macnaha oo siyaasi ah lagu magacaabay ee meesha lagu soo tuuray inta badan isqabqabsigaasi wuu imanaya arrimahaasi waa arrimaha hadda noo qorshaysan iyaga laftigoodu waxaan hadday ka hadlaynay markaanu safiirada arrimahooda gallo inaanu jecel lahay meel walba shaqaalaha hoosena inaan hoos ugu daadigno safaarad walbana tirada shaqaalaha ugu yar ee ku habboon ee qaban karta baahida shaqo ee meesha taalla xataa 2 qof haddii ay tahay meeshaas inay u baahan tahay 2 qof inaan ka dhigno inaan nila shaqayno oo waxa xuquuq idinka maqan idin soo dhicin oo xitaa ilaa madaxweynaha inta u tagno aan negotiation la sameyn oo ah sideen ku bedeli karnaa waddankeena sideen hor ugu socon karnaa ilaa hadda adduunka horumar baa la gaaray shalay like a week ago 2022 waan ku jirna maantana 2023 waay meesha ayada ahayd Soomaaliya inay taagnaato lama rabo haddaa la rabo inaan ka dhaweyno Soomaaliya heshiisa dunidan heshiis la waa inaan tusino waxaan heshiis kula noqonayna dunida marka taas waa ballanqaad waxaan rabaa inaan ku soo noqdo su'aal haday uu wasiirka taabto oo ah hantida maguurtada hantida maguurtada ay dawladda leedahay sida gaarida iyo guryaha sidee loo kontroolaa tusaale maalin dhow waxaa baraha bulshada dhex wareegaysa safiir oo joogo Roma oo gurigiisa miyaa auction lagu xiro ama auction guriga safaaradda arrintaas ayada inaa faahfaahin buuxda naga siiseen aad iyo aad u mahadsantiin su-aasha 2 qayb isugu jirta Roma waa issue gaar ah
iyo hantida maguuraanka. Roma markaan ka bilaawno dalka Talyaaniga guud ahaan iyo Romaba waxa waaye dowladda Soomaaliya waxay ku leedahay hanti maguuraan oo runtii aad u qiimo badan. wasaaradda hadda maanta aad la fadhiisaan oo aad isha ka dhageysanaysaan howlihii shaqo kaliya waxay ku leedahay 4 guri oo aad u qaali ah. waana 4 guri 2 guri waxaa iska leh qunsuliyad guud ah jirtay markii hore waxaa la kala qaaday safaaradda iyo qunsuliyadda guud. marka guri waxaa leh qunsulkii guud deegaan ahaan buu u ahaa, xafiisna kan labaadna waxa waaye qunsulka guud meeshuu ka shaqeynaya xafiiska uu ahaa waaye. midna waa safaaraddii Soomaaliya ee dalka Talyaaniga, meelna waa deegaankii safiirka. marka wax la xirtay iyo intaan u gelin marka intaas waxa waaye midba caqabadaha haysto. safaaradda caqabada haysto waxa waaye laguma shaqeeyo safaaradda guud ahaan way burbursan tahay oo waa safaarad runtii magaalada centerkeeda ku yaala aad u qiimo badan. mar inta qaxooti la dejiyay dhibaato badan adiga la soo furfuray kadib hadda gacanta waxay ku jirtaa isha wasaaradda, laakiin dayacaad dhinaca burbur ah yaa haysto. gurigii safiirkana waa maantaan ka hadlaynay golaha wasiirada wasiirka uu ku birsanta gareeyay. gurigii deegaanka safiirka ahaana waa wuxuu noqday asigana ii sheeg dowladda markaysaan u burburtay safiirka xilligaas joogay qalad wuxuu sameeyay wuxuu kireystay deegaankii uu deganaa si personal u kireystay. dowladda Soomaaliya markay burburtay nimankii kireystay marka 4 sano laga kireeyay, 4 sano markay ka dhamaatay waa laga soo celiyay. laakiin waxay sameeyeen qayb ka mid ah dhulkii baa nimankii kirada meesha ku deganaa bay iska ooteen maadaama wadankii uu burburay oo dad hadda la xisaabtamay badan aanan ka muuqanin. waxay ku dayeen oo tusaale ahaan u qaateen dhulkii haafkiisa yay iska xirteen. waxay arkeen marka xoogaa in dayacaad jirto kadib dhulkii Soomaali meesha joogtay baa dowladda oo burbursan intay u gurmuday baa la soo celiyay. deegaanka marka guriga waxaa ku socdo kow tasiilaad yar oo qarash yar oo waa state oo meel qurux badan oo xiran dadka madaxda ay degaan qolada oo local government waxay ka qaataan lacag yar, deegaanka waardiyaasha waxbay ka qaataan lacag ku socota deegaankii. marka adi marka la soo koobo gurigii marka iyo qofkii soo celiyay iyo qofkii meesha garyaqaanka ahaa aan iraahday abukaati shaqada galay iyo markii dambe qofaa wuxuu soo istaagay dowladda Soomaaliya lacag ku leeyahay gurigan anaa leh, gurigaana u qaadana macna halii xaraasho. gurigii marka dacwad inta ka furantay baa waa soo koobayay waxa waaye mar la celiyay markii ugu dambeysay 13 bishan waxaan tagay Talyaaniga. wasiirka yaa runtii personally lacagta markaas dacwada lagu joojiyay yaa soo amray oo ii sheeg oo haddii dowlad laga waayan anaa bixinay 13,000 dacwada hadda waa soo joojin waa soo damin wax kale ma sameeynin dacwada joojinay waa qodob. labadaas guri marka dayacaad midna dacwad ku jirto midna burbursan yahay. marka burburka caqabada kale ay keentay waxa waaye dadka deriska la guriga security oo yaani waxa waaye kuwa ii sheeg askulistiyaala soo galo tuuga soo gasho geedo weena ku baxay guriga inuu soo dumo xalis amaan baa ka jirta macnaheedu deriskii qaylinay. labada marka burburka iyo dacwadu way ka sameeyeen. burburka dartiisa looga dacwoonaya dowladda ka dacwoonaysa deriska ka dacwoonaya waa qodobka labaad. safiirkii ugu dambeeyay kan hadda jooga ku si haya ama aan safiirkii ka horeeyay xilka laga qaaday 7 sano wuxuu safiirka ahay dalka Talyaaniga. 7 sano safiirka uu ahaa marka la bedelay wuxuu diiday inuu xilka wareejiyo. xilka inuu wareejiyo markuu diiday caqabadaha uu taagay waxa ka mid ah xafiiskii ma ahane deegaankii uu xirtay. deegaankii qunsuliyadda guud oo safiirka deegaan ahaan hadda u isticmaalay labadii kale maadaama ay burbursan yihiin dowladda hadda waxay isticmaalaysaa xafiiskii qunsuliyadda guud iyo deegaankii qunsulka ahaa. safaaradda iyo deegaanka midna ma shaqeeyaan. saas darteeda marka waxaa dhacday in safiirkii uu xirto gurigii uu safiirkii markii hore asoo safiir ah warqad ku imaaday lagu wareejiyay markii xilka laga qaaday inuu diido inuu ka baxo. qofkii la soo magacaabay uu diido caqabad dheer kadib adiga hadda
sii hayaa loo dhiibay sii hayaha ka sokow guriga weli wuu xiran yahay waxaa xirtay ninkii xilka hayay wuxuuna ku xiray gambalaal iyo balaayo Canada uu aaday wuxuu diiday marka in uu wareejiyo halkeedan ku jirnaa final callkii dhowr waraaqa loo qoray oo weli waxaan intaas ixtiraam u sameeynaa dawladnimadii iyo in la dhihin nimankii ayaga isku kacsano marka guriga oo media aad ka aragteen waa guri gacanta ku hayna laakiin afarta bilood hadda aan joogno iyo ka horba inta badan hantida maguuraanka ahayd ay lahayd dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda wixii ay lahayd intooda badan dayac iyo burbur way jiri kartaa laakiin waa la hayaa oo 99% wixii ay lahayd dawladdu waa la hayaa laakiin adduunka nidaamka ka jiro de magaalada dhexdeeda guri burbursan oo la dayactirayn la dhisaynin la isticmaalaynin ama qaanuunka kale wuxuu qabaa guriga markuu dawlad kale ay leedahay diblomaasiyadu leeyahay status diblomaasiyada lagu ixtiraamaa laakiin dhowr sano iyo 30 sano markaad isticmaal weysid maxkamada loo diraa waa la haraashaa haddii aadan gadanin hataa waa lagu soo haraashaa waxaaga lagu siiyaa macna guriga waxa laga dhigaa guri oo la isticmaalayo in use umada laga badbaadiyaa marka guriga qaarkood halis noocaas ku jiro waa la haraashaya ama si isticmaala aad oo maasantiin ma arkin heshiisyo ka dhashay maxaa la yiraahdaa oo bilateral oo dawladaha aan la booqanayay iyo dadka loo tagayay iyo dawladda Soomaaliya dhex maray oo la keenayo golayaasha sharci dejinta ama u baahan in la ansixiyo oo hay'adaha la soo marinayo la sharciyeynayo marka horta ma jiraan safaradan aan baxayno ama madaxweynuhu ha baxo ama wasaaraddu ha baxdo laakiin safaradan la aadayo banaanka mar walba maxaa ka dhasha heshiisyadii iyo wixii la gaaray iyo wixii lagu soo heshiiyey wax golaha la horkeena ma jiro waxaad noo soo wadaan ma jiraan miyaa wax la gaaray haddaynan jirin wax laga gaaray oo dee maxaa loo interest loogu yahay in la baxo soo dhawaada su-aashaas waaye su-aasha aan qodobkan aan soo hoosgelayso rabno inaad weydiino waa mahadsantihiin senator aad baa u mahadsan tahay waa run safaradayadu walow sidii baahida in la safro ay ahayd aanaan u safrin haddana waanu safaraa safarada loo nooc way isugu jiraan ama 3 meelaha qaarkood booqashooyin rasmi ah oo wadan aynu saaxiib ahayn ama aynu iskaashi hore lahayn oo aalaaba ay u badan tahay taa rasmiga ahi madaxweynaha in lagu casubo lagana yaabo wasaaraddu inay qayb ka noqoto shirar muddaysan oo macnaha sanadkii oo mar ama laba la qabto ee ururo aynu qayb ka nahay oo la aado tusaale ahaan hadda intii aan xafiiska joognay annagu shirkayga ugu horreeyay aanu aadno wuxuu ahaa shirkaanu September 6 aadnay oo ahaa shirkii wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta qaahiro ahaa waxay ahayd shir routine caadi ah oo ay hadana tagna shirkaasoo kale waa shir inta badan haddii aanay jirin doorasho xilligu la kala wareegayo follow up waxyaabihii horey uga socday deegaanka macnaha jaamacadda carabta arrimaha siyaasadda iyo amniga iyo dhaqaalaha iyo waxyaabaha la xiriira midda labaad shirarka ugu dambeeyay waxay ahaayeen shirarkii qabsoomay ilaa iyo bishaas wixii ka dambeeyay 3 sano oo hadda covid ku jiray wax shirar ah oo la isugu yimi ma aanay jirin shirka waxaa noogu xigay hada shirka waxa ka horeeyay shirkan ku tagnay Uganda oo ay sii horeeyeen oo shirkayga kuwadaha oo ay sii horeeyeen guddiyo farsamo tiimam farsamo oo annaga dhinacayaga oo hogaaminayay xogayaha joogtada shirka markaan tagnay 4 heshiis baa la soo galay waxaa la soo galay heshiis oo duulista hawada ah waxa MOU waxaa kaloo la soo saxay MOU kale oo difaac ah waxaa kaloo la soo saxay MOU kale oo ganacsiga iyo MOU kale 4 macnaha heshiis baa la soo saxay MOU-yadaas annagu waanu register garaynay
waxaan loo soo gudbiyey gariiqaanka ya anaga legal department u gudbinay laakiin wasaaradihii shaqooyinkaa lahaa iyaguna yacnaha way soo qaateen koobiyo wax loo soo gudbiyey marka kuwa waxaanu sugaynaa markii ay ka soo dhammaadaan gariiqaanka guud iyo xukuumadda ee ay geeyaan wasaaradaha shaqadaa leh in marka annaga koobiga aanu haynay oo ay noo yimaado koobi kale oo soo maray processka oo aanu markaa sharci ahaan aanu meel u dhigno shirar badan oo ka mid a shirarku waa shirarka sida ka carab liiga carab summitka oo hadda algeria ka dhacay ma jirin wax MOU ah ama isfaham ah oo la sharaxay laakiin waxaa jiray shir duceedyo aalaba ku salaysan baahiyaha innaga inoo khaaska ah oo aynu kala hadlo markaa waddamada aynu markaa martida u nahay haddii ay yihiin kuwa baahiyaha aynu ka wada hadli karro ama waddamada kale ee aynu ururka ku wada jirro aynu shir ka wada nimi marka aalaba waa madalo looga faa'iidaysto in waddamadu ay isku ararkaan shirarka ugu dambeeyey waxaa ka mid ah hadda masar oo kale oo lagu noqnoqday dhowr jeer waxaa ka yimi heshiisyo maantay golahu wuxuu meel mariyey ansixiyey golaha aqalka hoose 5 MOU 5 MOU waxa ay gaareen oo hadda intii aan fadhiyey halkan aan hadda fariirada arkayay sorry intaan qadada fadhiyey in lagu celiyo dowladda safaaradda iyada Masar loo diro oo leeyahay 5taasi aqalka hoose mareen amiin xukuumadday mareen gariiqaankuna waa soo approve gareeyay waxay diyaar u yihiin in la soo saxiixo 5taasi hadda ayaa la saxiixi doonaa may waxay soo mareen xeeralaya gariiqaanka waxay yimaadeen golaha wasaaraddu maanta waa meel mariyeen waxay diyaar u yihiin in la soo saxiixo wakaa marka waxaa kaloo jira meelo badan oo aanu anagu hadda tagno intii hadda aan joognay heshiisyo naga horreeyey oo weli wakhtigoodii uu socdo aan weli dhicin weli faalid ah meelaha qaarkood waxaa jira heshiisyo socday oo wakhtigoodii dhammaaday oo cusboonaysiin u baahan iyagoo aan waxba laga bedelin siday ahaayeen meelaha qaarkood waxaa jira kuwa dhacaya oo nala soo wadaago oo u baahan in dib u eegis lagu sameeyo maadaama siyaasadda waddanku isbedesho heshiisyadu iyaguna saameyn bay ku yeelanaysaa marka mudane senator way jiraan heshiisyadu kuwa cusub aanu gallo annagu inta badan ka wasaaradda arrimaha ahaan 2 nooc baanu gallaa mararka qaarkood kuwa aanu saxiixnaa way jiraan kuwa aanu kor joogtayno oo wasaaradaha ay khaaska u khuseeyaan ay saxiixaan ayna iyagu ay dabagalaanna way jirtaa sidoo kale waxaa qaynuunka in badan heshiisyadaas waxaa dabagalaa safaaradaha iyaga meelaha lagu saxiixay marka intaas hadday okay tahay waa okay haddii kalena waan kusii dari karaya ku darayaa bis sidaa ogtahay yani dowlad markay cusub tahay mise xukuumadda markaas jirta markay cusub tahay waxay samaysaa trust building safarada horta inta badan trust building ay ahaayeen macnaha xukuumaddii hore jirtay iyo dalal qaarkood iyo xoogaha gaabgaab imaaday baa inta badan lagu dayactiraayay waxna way naga horeeyeenoo aniga iyo wasiirkii iyo way naga horeeyeen madaxweynaha iyo xildhibaano markaas jiray baa aaday kuwana ii sheeg xilligii yani wasaaraddan wasiir cusub ay yeelatay bay u badnaayeen marka waxaa kaloo sii dheer sanadka markuu gebagabo maraayo almost shirar caalamiga loo badan yahay oo macnaha iskaashi ii sheeg sanad le name them marka shirarka qaarkoodna waxay iska ahaayeen hadda tusaale ahaan shirarkii maraykanka oo kale waxyaabaha africa looga hadlaayay kii arabta china dadku ku wacay qaarkood waxay dabada ku haayeen marka tartan looga jiro soo jiidashada yani hindhaha africa oo qof kasta isku bandhigayo
maxaa ka qaban karta Africa xilliyadii hore siyaasadda aad yani uma danayn jirin laakiin waxyaabaha oo muddo dhexdaas aan aad u fiiriyo waxaa ka mid ahaa siyaasadda Soomaaliya meesha aan ka fiirinayno waxyaabo gaagaaban iyo 4.5 adduunyada waxyaabaha ay ka fiirinayaan waxa waaye suuqa dadka ku cariirin lahaa baa la iska celinaya macnaha suuqa markaas hadda waxaa is haysto reer Yurub oo dhinac ah China oo dhinac ah Mareykan oo dhinac ah marka inta badan qofba wuxuu ismuujinayay sida meeshaan dehan oo ii sheeg oo mustaqbalka marka sanadkan inta badan waxaan ku kaabi lahaa on waxa ugu badan oo naga maqnaa oo masashirka inta badan la aadayo waxay u badnaayeen horta trust building inta kalena MOU-da wasaaradda gaashaandhigga dagaalka dartiis yaa ugu badneedaan u malaynaa haddii hadda laga reebo wasaaradda warfaafinta oo maanta 3 MOU keentay haddii laga reebo wasaaradda warfaafinta hadda maanta 3 MOU keentay laakiin inta kale waxaa u badnaay gaashaandhiggana waxaa badiyay waa dareemi kartaan dagaalkan lagu jiro waxyaabaha ii sheeg la xiriiray marka qaarkoodna yani xukuumadda celisay oo waxba yani qabiil ka ahaa qaarkoodna ii sheeg xukuumadda soo ansixisay golihii baarlamaanka aqalka hoose soo marayaan way ku soo socdaan qaarkoodna waliba macnaha ayagana ma gaarin xukuumaddana ma ansixinin marka on the way marka waa way soo gaari doonaan sida ugu dhaqsiya badan aad uma santiin anida marka la sameeyo madaxyay leedahay ma madax la yiraahdo macadka diblomaasiyadda iyo tababarada miyaan jirin mise miisaaniyad sideedaba xafiiskan iyo macadkan leeyahay oo dhanba ma jirto يعني مرنا وحن كوضع مرنا وزارده بجت كي ميزانية هان راعسنان كرا مرنا معهد وحن نقول كرا جار تاجن أو سيدا واحدة وزارده وحبرشة جامعة أمده كله مركب ما واحد بجت يوح ميزانية هو الله قلت لك له هذا هان أما حفيز هان بمجر تميع حقيقة تاس أيضا سنة كذا هواد ديارنا إيو سنوات كهريبة way jirtay in loo diray wasaaradda maaliyadda laakiin ma aysan dhicin in miisaaniyad ahaan mar walba macadku wuxuu ka tirsan yahay wasaaradda wuxuuna u raacaa tan wasaaradda laakiin ahamiyadda u leeyahay dalka ayaa mar walba waxay muhiimadeeda tahay wasiiradana ay u taagan yihiin iyo xogayaha joogtada iyo madaxda wasaaradda dhan in uu macadka uu noqdo macadka hadda waa macad qaran waaye oo wasaaraddu wuxuu tababaro ma aha shaqaalaha wasaaradda kaliya ma aha waxa uu tababaro oo maalin walba ay nooga imaadaan waraaqaha oo xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo labada aqal iyo wasaaradihii oo dhanba marka miisaaniyad isaga hadda u degan oo waa dejinay laakiin wax hadda miisaaniyad ah oo isaga gooni ah hadda oo uu u leeyahay oo u taalo ma jirto marka taas waxay la mid tahay cabashada hadda uu laga cabanayay wasaaradda oo meelihii muhiimadda lahayd laana inta badan miisaaniyadda dawladda muhiimadda waxa la saaraa waa waxbarashada iyo ciidanka iyo wasaaradaha muhiimka marka kuwaas uu la mid yahay waana dadaal fara badan ugu jirnaa runtii inuu noqdo inta hadda idin muuqato inuu laba jibaaro si karti dhisidda uu u xoojiyo uu noqdo runtii meel u noqon karto macabar loo maro aqoonta inuu noqdo taas oo tan ku dadaalayno ma santiin bixin ku bixinayna midkalen aniga guddiga maaliyadda golaha shacabkan ka tirsanaa 5 sano la soo dhaafay hadda miisaaniyaddii waan kala shaqaynayay guddiga maaliyadda labada aqal laakiin aqalka sare unbaa waa la igu daray mooyaane inaan miisaaniyaddan kala shaqeeyo guddigaanaan xubinka ahay oon ka tirsanahay laakiin taladee ay ila qumani waxa weeyaan meeshaan wasaaradda maaliyaddu culayskuna waa badan yahay sida loogu kala qaylo batan wax waa loo diiwaan geliyaa marka dee waxaan maalin dhaweedna markaad imaanayseen wasaaraddu ay imaanaysay guddiga waan la joogay oo maaliyadda labada aqal markuu isla joogo wasaaradduna noo imaanaysay waan joogay marka dee waxay ku fiican tahay hadda culaysyada aad sheegaysaan oo dhan aadka u tirada badan aanna dareensanahay runtii dee safarka kaliya inta u qoran wasaaradda maaliyadda wasaaradda arrimaha dibadda ayaa daliil waxay u tahay oo dee wasaaraddii ugu safarka iyo ugu dhaqdhaqaaqa ugu shaqada badnayda marka la yihahdo safarada bannaanka waxa u qoran budgetka ugu jiraahay waan arkay marnaba wax oo ka fargarayn kara baahida wasaaradda ma aha
marka wasaaradda raba inay 47 safaaradood ee bannaanka ishraafto laga rabo inay safaradii kaleete dowladda iyo shaqadii kale loogu talagalo dhan ay qabato iyo budgetkaasi isma daboolayo madaxyada kaleetana waa la mid waa suurtagal la mid tahay marka aniga waxaan idin soo jeedin lahaa horta mar walba waxaa jira ku celinta budgetka jiro oo 6 bilood kadib mar la sameeyo June imaan doona inaad horta de macadkan oo kaleeto haddii xataa wasaaraddu ay maxaa la yiraahdaa ka soo dhaga adeegta maaliyaddu inay soo gudbiso gudiyada laftirkooda early codsi loo soo gudbiyaa oo loo yimaadaa marka gudiyada wixii caqli gal ah way buush gareeyaan hadda laftirkeeda waad ogtiin miisaaniyaddii 3,000 oo macallin lagu daray wasaaradda caafimaadka isbitaalla ayaa lagu daray isbitaalkii xoogga wasaaradda difaaca loogu daray waxaasoo dhan guddigaa ku daray marka ayagoon budgetkii ka bixin ayay si guud laakiin haddana budgetka dhexdiisa isku celceliyaan marka adinka inaad barashar ka abuurtaan oo safarka bannaan kaliya uusan inla tegin miisaaniyadda inaad ka warqabtaan oo 6 bilood oo soo socda wasaaradda sidii loo xoojin lahaa sidii ay madaxyada iyo meelaha ay culays ka haysto looga xalin lahaa inaad xoogga saartaan idin soo jeedinaya oo early wasaaradda maaliyadda aad kala fariisataan hadday halkaa idinkaga soo suurto galaan khayr haddii kalena ilaa guddiyada la isla socdo si loo xaliyo baahidan waa maasantii waxaan qabaa saaxiibaday inay ila qabaan dee fadhiga hadda aanu fadhino iyo xasiloonideeda iyo sida aanu su-aalihiina ugu helanahay intaa doontaanba inaana weydiisaan annaguna uga jawaabno ayaa idin muujinaysa idin tusaysa waxaana inaan raalli ka nahay inaan idin soo ajiibno raalli inaan ka nahay inaan su-aalana weydiisaan howlaha iyaga wasaaradda gudo iyo dibadba aada ogaataan dhaliilaha iyaga aada nala wadaagtaan weliba si constructive ah oo wax dhisaysa oo wax taraysa aada noo taataabataan yacna annaguna aanan hagar gelin ee waxaan qabaa inaan su-aalahana weydiiseen jawaabahoodii oo daacada inaanu idinla wadaagnay waxaan annaguna ka mahad celinaynaa runtii sidaad noo qaabisheen weliba maanta gelinka hore oo dhan annaga oo ku maqneen shir kale inaad noo howlacaydeen oodna sugayseen oo ilaa iyo xilliga taa ka sokow haddana inaadna martiqaadeen ood aada noogu darteen shirkii martiqaad iyo soo dhoweyn ee madashaad nagu qaabisheenna mid qurux badan oo wanaagsan ay tahay jawigoo dhammana mid fiican uu yahay annaguna waxaan idin ballan qaadaynaa wada shaqayn dhow oo joogto ah oo aynu mar walba iska warhayno weliba inaynu ka wada shaqayno hadda waynu wada fadhinaa guddiga kale oo aqal golaha shacabkaana waa soo aragnay inaanu abuuro jawi labada guddi iyo wasaaraddu ay tiim ahaan u wada shaqayn karaan oo aynu abuuro maadaama hadda aan gaargaar soo aragnay inaanu ka shaqayno annagu aanu gogashaa dhigno oo aanu diyaarino mudanayaal inaanu labadii guddi annagu casino inta weliba reformkan aanu ku jirro oo aanu idinla wadaagno qorshaha iyaga waxyaabaha aan idinka baahannahay meelaha rabno inaad gacanta naga siisaan waxyaabaha aan rabno inaan qabanno si aad tala noogu darsataan inaanu ka shaqayno annaguna idinla soo wadaagno xilliga aanu ilaahay idinkii way ku habboon tahay inaanu idhaahno labadii guddi waxaanu u baahannahay inaanu maalin la fadhiisanno maalintaan annagu aan idin ballamino oo idin casino haddii laha yidhaahdo marka arrintaas aad baan runtii iyadana ay iila muuqatay inay abbaar tahay oo ay mudan tahay marka gebagabadii aad iyo aad baa umahadsantihiin dhinacayaga waan idin salaamaynaa guddoomiyahan ku celinayaa mikrofoonka saaxiibaday haddii ay warqabaan wantaan okay adiga iyo tiimkaagu annaga aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa adigoo daalan oo shir kale ka soo baxday inaad noo imaadeen waa mahadsan tahay